siiyey baa igu filaatay anigood arkaysaan inaan cagihii naafa ka ahay haddana laxaadkaygii intii ii soo hadhay iyo maskaxdaydii oo iskaashaday ee wax fiican bay qabtaa magacaygu waa Nuuro Maxamuud Nuur muddo imika laga joogo ilaa 16 sano ayaan maxay hayday aan beertan iibsaday taasoo markaa oo qorshahaygu ahaa ama higsigayga fogi uu ahaa inaan markaa geel aan ku dhaqo alxamdulillah tiina way suurta gashay cabdiyow walaala geeli balkii ma u soo miya soo qaatay mid qalalan soo maaha markii hore laakiin intaanan geelan iyo beerahan iyo hawlahan aanan gelin waxaan ka shaqayn jiray ururada bulshada imika laakiin labadii dhinacba waan isku wadaa caqabadaha horta waxay iigu darnay waqti roob da'ay ayaa hawd loo saaray geeli dabeedna ninkii aan u dhiibay ee aan idhi geel kale oo isaguna beeralayda ahaayo meel joogay u gee ayaaba iga dhacayba geeliiba marka waqtigaas unbay iigu adkay dabeedna isagoo xadka Itoobiyaba kala sii talaabaya ayaanu markaa halkan annaguna ka gurmanay Burco dabeedna alxamdulilaahi rabbil caalamiin waanu soo qabanay geeliina waanu helay ninkiina markaa waa la xidhay ganacsigan wax weyn horta waa geel waa xoolo nool oo geel ah waana hidiya dhaqankii Soomaalida waxaynu maaragtay ay asal u lahaan jirnay haddana waqtiyadan dambe waa la casriyeeyay oo magaalooyinkii ayaa maxay hayday geelashii lagu dhaqay sidaa darteed maxay hayday xagga caanihiisa oo kale habeenkii iyo subaxii wuxuu soo saaraa adigu ilaa 80 litir ilaa 100 litir ilaa 90 litir eriyadaas inta u dhaxaysa waliba qof dumara oo naafa ah waa aniga Somaliland oo maxay hayday mashruucan geela ku jirta anigu horta isuma aqaano in jirkayga qaybo kamid ay maqayin isuma aqaano sababtoo ah qof kasta oo lixdiisa laxaad qaba wixii uu qabsado waan qabtaa xataa qaar laxaadkooda qaba intaan anigu qabta aan qabanin mararka qaar baan waxaan arkaa dad aan maxay hayday laxaadkoodii oo dhan iyo xooggoodii oo dhan aan ka faa'iideysanaynin oo meel iska fadhiya oo le waxaanu ka shaqaynaanu garan weynay ma shaqo ma helayno maxay day qofkan oo sidan caawi marka waxaad arkaysaa qofka xooggiisa inuu khasaaroobay